odayaasha dhaqanka iyo bulshada magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta Dhuusamareeb qada sharaf ugu sameeyay guddiga dibadhsiinta Galmudug iyo ergada magaalada u timid inay ka qayb galaan shirweynaha loogu diyaar garoobayo dhismaha Galmudug loo dhan yahay. Ugaas Cabdidaahir Ugaas Nuur oo ku hadlayay afka dadka reer Dhuusamareeb ee qada sharafta sameeyay una sameeyay guddiga ergada ayaa sheegay in kulankani uu ahaa mid isbarasho ayna ku soo dhaweynayaan guud ahaan ergada iyo guddiga shirka loo igmaday. soo dhawaada Dhuusamareeb intiinaan qolo aan guri ku lahayn ama aan deegaan ku lahayn idinka mid ma waxaan idinku soo dhaweynaynaa oo keliya meesha markii la yiri deegaanka waana la wada leeyahay waana la isugu yimid waana la wada dhisanayaa maamulkiina waa lagu yagleelayaa markii la isugu yimid haddii marka inaan wax dhisano oo wax qabsano oo aan noqono dad jira ilaahayna waafajiyo haddee waa mahadinaynaa ayadaana rajaynaa in ilaahay nagu guuleeyo soo dhawaada waa deegaankiinni waa guryihiinni waa taladiinni waa fadhigiinni waa mataqaanaa abuurkiinni dowladnimo ku soo dhawaada. sidoo kale ugaas Cabdilaahi ugaas Xaashi ugaas Farcade oo ku hadlayay afka ergada kulanka ka qayb gashay ayaa uga mahad celiyay reer Dhuusamareeb soo dhaweynta ballaaran ay maanta u sameeyeen isagoo sheegay in loo baahan yahay Galmudug in midnimadeeda la adkeeyo. ugaas anagu halkan marti kumani gogoshaan Google saargaan haysanaa waana idinkaga mahad celinaynaa sida qiimaha leh gogoshaan quruxda badan sida aad noo sharafteen dhammaan waxaan ku hadlayaa afka odayaasha halkan fadhiya iyo ugaasyada halkan fadhiya Galmudug inta beelood ay ka kooban yihiin kama qabna gogosha aad noo dhigtaan wax saluug ah wax ceebaala male howlaha inteeda kale waa ay noo dambeeyaan waa isugu tagi doonaa laakiin tan waxaan u maleynayaa is araggeena koobaad tahay ujeedada gogosha aad dhigtaanna waxay ahayd inaan farxadiina iyo deegaankiina iyo dadkiina iyo dalkiina adinkoo goobjoog u wada ah ayadoo Dhuusamareeb la wada degan yahay in u muujisaan wanaagga aad noo qabtaan annaguna waxaanu diyaar u nahay inaan si qalbisamo ah oo calool fayoobi ah aanu kaga qayb galna shirkan ee guddiga noo cilaamiyeen. gudoomiye ku-xigeenka guddiga dibadhsiinta Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel ayaa intaas kadib ka hadlay goobta waxaana uu shaaciyay inuu shirweynaha dibadhsiinta Galmudug oo furmaya 48 saac gudahood. walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin anoo mar labaad iyo mar saddexaad bayna kaga mahad celinaynaa anoo guddiga afkiisa ku hadlaya waad la socotaan annagu waxaan doonaynaa oo kaliya waxa weeye wixii aanu halkaan u nimid oo qurux badan oo nabadgelyo ah oo madaxdii qaranku ay ka soo qayb gasho oo adinka inta idinka dhiman aad ka soo qayb gashaan bay ahayd arrimaha dib u dhac ah oo idinkaga cudur daaranayno wax kaloo cilad iyo wax kaloo dhibaataa midna ma jiraan qolada ka maqan waxaanu ka codsanaynaa way soo gudubsadeen laysaskoodii iyagana waxaan ka filaynaa haddii alla idmo inay waqtiga ugu degdegsan yimaadaan shirku waa inoo furmayaa haddii alla yidhaahdo 48 saac oo soo socota waa inoo furmi doonaa marka intaas aan isu dulqaadano. Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb.